الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاشين جوار حسين حلقة نقل سعتان وكانوا جوار حسين إنه ما مشى وحرجنا إنا عافمت قبتان سدا أنا عافمت قبو الله سبحانه وتعالى عافمت كانوا زياديو الله سبحانه وتعالى أنت حنوصن حنوك هكذا القاضي عافمتها وبدلو دم بدافنها وقولوا الله سبحانه وتعالى ضل كان حينوها جاجيو الله سبحانه وتعالى كوا الظلم جا اسكر بها نقديو الله سبحانه وتعالى أنت عن جور هيسن جور ونكسن هكو أرزاقه أنت أبد هيسن أبد باري هكو أرزاقه أنت أبد كوذا كم قنها وسوع عليو أنت شرعية كعكرا الله سبحانه وتعالى قال ذا أوسو قال أنت شقة هيسن شقة أي كفر حان نفتوض وحقوق بصدان هالسيو اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أنت أبياشو ذا كحنوسن أنت هوينكو ذا كحنوسن أنت إلمها كحنوسن أنت أيجا حنوسن الله سبحانه وتعالى الشفاعة عاجلة أو أجرا الله سبحانه وتعالى هالسيو اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أنا طبعا أنا سومالي هدان هاي waxaa isku ogeynay dulmi in guri la iska qaato lacag la iska dhaco wax la iska inkiro inta xogaa taas in qabyaalad la isku faquuqo yani intaas waa isku naqaanay laakiin Soomaalida wax sixir ana macruuf kuma ahayn أنا لقوما أقوانين مش عارفة يعني سندها نحاول مليسا إن أي آمنين ضدك قار والعياذ بالله يعني وحص انكاس أي آمنين هذا أنا أقولها والله إن هير إيمان ضررنا هير كاس أي جارتي الضعف الإيمان إن هير كاس ونجا جارسية فمع الأسف هذا أقولها أنا كجواهر أهان أنا بعيدا وحيل هذا هاي أنا طبعا وحاسكها gabar iska danyar ninkeygii anigana alxamdulillaah nolosheen way ku qanacsaneen ninkeyga wax barasho muusan galin ma ahayn dadka wax bartay laakiin waa qof shaqeysta wuxuuna ku shaqeysan jiray dhididkiisa wuxuuna ahaa xamaali oo doodkiisa wax ku dhacsada laakiin aad noogu fiican ubadkiisa og waxaa jirtay gabar la dhalatay asiga oo markaas magaalada la joogtay oo ayadana iska shaqeysanaysay ninkeyga runtii walaashiisa waxay u ahayd aad mid isugu xiran labadooda aniga walaashiisa wixii markaas amarkeeda kaliya uu ku socdaa ninkeyga anigana raaliya ku ahaa laakiin marmar waan dhihi jiray maxaa ka qaldan ma naftaada adii daryeeshid ma naftaada adii wax walba oo u qabsatid ma naftaada adii sidaan yeeshid markaan dhaho wuxuu dhihi jiray walaashayda ma ahan qoftaan waa hooyadeeda kaliya ma ahan walaashayda ee waa hooyadeed runtii markuu saas idho wan ka aamusi jiray ileen yaraantiisa ma soo arkay ani nin oo weyn oo qaangaar ah oo shaqeysta kaliya arkay nolosha ku soo korayna waxba kama ogi marka sidaas darteeda waxa u aamusay in walaashiisa noloshiisa iyo korsiimadiisa ay kaalin weyn ay ku lahayd waxay sidaas ahaataba waxaa jirtay ninkeyga wuxuu ahaa nin runtii sax wax qoritaani wax aqrin ma aqoonin laakiin nin inuu wax qabsado mar walba jecel ayuu ahaa waxaa jiray nin ay asxaab wada ahaayeen oo la wada yaqaanay oo walaashiisa iyo asigaba ay yaqaaneen oo aqoon leh aqoonkiya waxaa jirtay ninkeyga iyo walaashiisaba in wax ay ku aruursan jireen waxay ku aruursan jireen wax lacaga ayay ku aruursan jireen runtii isma lahayn ninkeyga walaashaada wax yar kugu sameynaysa ama walaashaada dhibaato ku geysanayso tan cajiib waa dadku iska hor keentaa si walba isku jecel yihiin tan waxa isku darsan kala fogaada fa waxay ahaatay hada wax qof ku darsanaysan qof ka fog ku darso adii wax ka dhacsan kartid laakiin qof ku dhow iska fogay inta iska fogeyn karto waxa ku caawin karto ku caawi laakiin waxbaha isku darsanina fa waxay ahaatay waxay dhahday ninkeyga caruura u dhalay falxamdulillah gabadhii oo ninkeyga walaalkiisa ahayd waxay sidaas ahaataba waxay gaday boos ayay gaday lacagtii waxay ku gadatay boos tii ninkeyga uu lahaa iyo tii ayada ay laheedaba waxay ku wada gaday booskii markay ku wada gaday wuxuu dhahay ninkeyga aniga soo nusku kama lihi markaas waxay dhahday maxay tahay nuska ka leedahay lacagta aniga shaqeystay booskaana aniga leh isee ku leedahay waa ogtahay in lacagta inaan kugu aruursan jiree oo wax alla waxaan shaqeysto ilmahayga xitaa adile wax u gadi jirtee oo ogtahay aniga waxba ka reeban jirin sidee wax u jiraan
waxay dhahday waxaan kugu waxa igu leedahay malahan waa kaasa tolkiya isku imaadeen in Soomaali tolay leedahay tolkiya isku imaadeen tolkii marka isku imaadeen waxa lahay ninkan walaalkaaga waxiisa waa inaad siisaa lacagta maadaama uu kula aruursan jiray waxay dhahday wuxuu ila aruursan jiray mala wax yar oo ku darsan jiray wixiisa yarna maxay radaa si wax ani ku lahaa waa ninkii la keenay ninkii waxa la ninkan asin lacag ma kugu shuban jiray oo naagtan lacag akoonkaaga ma ugu aruurin jirtay isku darsan jiray haayo dhahay taas marqaatiya ka ahay lacag uu ku darsan jiray aydan way ku darsan jirtay waliba ana akoonkayga ugu aruurin jiray markaas ninkii markii uu saas dhahay waxay dhahday lacagtaas deen ani ku lahaa leeb waaye lacagtaas waa deen ani ku lahaa uu yareeyeen jiray oo sidaas akoonku wuxuu idhahay akoonkaas maadaama akoonkaas adiga waxa ku aruursatid anigu waa kugu la aruursanaa sidaas darteeda lacagta deenta aan kugu lahayne ku qaado ee wax kale oo jiro ma jirto marka saas la dhahay طبعا Soomaalida xeer u taala waxay tahay in faataxa la wada akhriyo faataxa laga wada akhristay ninkan waxa la iskaaga samir waa kaasa iska dulqaado waayo dhahay maadaama walaashay ay tahay waxba uma qabiye ha idaafto المهم waxaa jirta marka gabar walaashooda baadiye ka imaaday baadiye markay ka imaaday arintii ay soo dhaxgashay ay soo fagtay markaas gabadhii ay u tagtay waxay dhahday xaraam calayk wiilkan walaalkaaga ah oo intaas oo shaqeysanayo oo wax walba oo maxayradaa adi u ahayd walaal u ahayd waalid u ahayd oo meesha adi aad uu kugu kalsoona wax uu kugu aruursan jiray oo ninka barta iyo wax ku aruursan jiray marka maxaasas ina u gashid ma ahayn maxaasas ugu gashay gurigaasna nuskiisa booska si asigana adiga nuskaaga boos qaado markaas waxay sameysay nin oo asina qaraabada leh intay ku soo dalbatay waxay dhahday ninkaas soo handad ninkaas inuu afaarihiga soo galin ninkaas inuu agteeda soo marin tahdiid ku soo sameey yani u soo caga jugle waayo waxa naagtan iyo asi hadda iska soo kaashadaan booskas waa laga qaada asigoo xamaaligiisa iskaaga jiro ninkii Abu Heelo uu imaaway wiil ninkii islaameed oo xamaaliga iska ahaa oo shaqadiisba ahayn booskaas ba Ilaahay dartiis isaga sabray oo walaashiisa darteeda iskaga dhaafay oo inta u tagay wuxuu dhahay wax ma ku sheega gabadhaas aggaarkeeda ma mari kartid boosna kuma soo qaadi kartid adii heblayna meesha ma imaan kartiin iska jir hadee meesha imaadid wuxuu kugu dhacdaa isku keentay mar dambe meesha ma ka shaqaysanaysid mar dambe meesha ma imaanaysid yaa Abu Heelo waa xanaaqay Abu Heelo waa xanaaqay bil aadanka si walba uu dulqaad badan yahay hal mar carooda hal mar uu xanaaqa markaas wuxuu yiri oo anigii booski aan ka sabray oo anigii oo maxarada faraha ugu qaaday ma bali isoo handada oo waliba liiga cag jugleyna miyaha Abu Heelo wuxuu soo qaaday midii intaas la egu soo qaatay midii intaas la eg markuu soo qaatay wuxuu imaaday gurigeedii oo imaaday waxaaba joogaan ba ayadii iyo ninkii qaraabada ahaayna gurigii booska ahaay dhinac ka degantaa aba joogaanbo mididii oo qaat way carareen guriga isku soo xireen markaas wuxuu yiri maanta ama ana lay dilaa ama walaxan dilaa inta ma u socdo inta ma u socdo dadkii dhana isku soo baxeen dadkan oo walaashiisa ninkii kala daday waceen qof walbo imaado tolka qaraabada wixii la dhashay oo qaraabada ay yihiin dadka qofkii imaado wuxuu leeyahay haduu dhiigiina dhiig muslim yahay dhiigina haduu dhiig muslim yahay أبو صومالي وحيابة عجيب هكذا والله سبحان الله سبحان الله سبحان الله قفل بحلايه ديق مسلم هدوي هاي إيجا بدبات سدا ما أنت أنا ميت كيجا أنت اللي قاضى أما ميت كلا أنت اللي بحنا أيجا ميت كميدا على بحنا أما أني قال لي بحنا أني جو وحن اسكت في هرت مريس وكعيها مال نمو السعودي وراها مال هذا إلهي أبورت مجرت ما أنت أما ميدا اللي قاضى أما وحبا لي سينا فوحي sidaas ahaatabo si walba qof walba u soo dhawaan waayay dadkan guriga ku xiran yihiin markaas waxay wacday ninkii akoonka ay lacagta ku aroorsan jireen ninkii wacday waxay dhahdeen ninkan adoo warka maqlaay bal imaaw imaado maxamed dhulkiisa ma siinaysaa hawa siinaya ninkan kaale imaaw naga wad ninkan hadii kala kawo naga siina wuuna dila waayahay ninkii imaaday ninkii markuu imaaday walaalo isdejiyo dhahay ya wax walba hagaagayaan isdeji wuxuu yiri waxaan isdejinahay Ilaahay abuurtay ma jirto haduu dhiigaaga dhiig muslim yahay ha ii soo dhawaadin wuxuu yiri kaliya dhulkaaga soo marabtid ha dhulkaaga waa lagu siinaa
dhulkaaga waa maxay radaasi wax walba lagu xadidaa wax walba lagu siinaa waa kaasa ee isdeji cudubilayso dhulkayga malaysiinaha adima damaanad qaaday ha waayahay midida sidoo ku dhigay ala soo baxay arintii waxa la galay marka oo dhulkii iyo waxyaabihii la galay marka dhulkii iyo waxyaabi marka guri way is ag deganaayeen iyo dhulkii markay gadatay ay qoftaan ay soo guurtay marka waxaa jirtay dhahday maamada oo ka sheekeynaysa oo ninka xamaaliga qabo maalin waxaa jirtay dhahday oo aan maqnaa aan meel soo aaday oo ilmaha baasta ay u karisay cunto ay u karisay baasta ibris waxay baasta inay dhahdaa jeclahay qoraalka baasta ay u karisay cabitaan fiinta ay u qastay oo maanta eedadiina ahay anaa idin cazuuma anaa wax idin qabta anaa wax idin siiyay waxay dhahday aan oo maalin ay cuntadaas u karisay ilmahayga maalintaas maalin ma loogu dambeynay dhahday maalintaas horta al cunug waxay dhahday asi dhanba isku soo laablaabma qof oo ku dhacayo kale jalda qof ku dhacayo kale waa taqaaniin wal ciyaadu billah kalaamiso qof ku dhacayo kale waa isku soo kaduudana aslan isbitaal aanan geynin malahan martii bisha la ugu soo sheegay dhad rafeetar la ugu soo qora mar waxa la leeyahay waxa waaye ilaahay ku roon yahay neerfa waaye marba waxay dhahday anigu iska xamaalanayay dhahday lacagtii oo dhanba meesha ku dhameynay dhahday subxaanallah waxay dhahday ninkii markiisaas la dhahay ninkii meeshaan ku mashquulsan ana ilmihii ku mashquulsanahay dhahday oo marba cunugii marba meel cunugii kana jiranay kana aroonanay kana jiranay kana roonaanay dhahday subxaanallah waxay dhahday ninkii arintii la galay oo ilaahay ku roon yahay oo guriga booska nuska booska loogu wareejinayo markaas nimankii dalaalka ahaa intay u tagtay oo booska iyo waxyaabihii iyo kala wareejinay intay u tagtay waxay dhahday ninkaas ilaan lacag ma haysta asi ninkaas oo xamaaliga waxa ku xiraysiin lacag $500 ah lacagta $500 hadii adan haysanin anaga arinta ma galayna leh ilaan nimanka shalay dhulka waxa ka ahaa waa ayaga wax kala habeen kare markaas wuxuu leeyahay walaalayaal ma haysti intee ka keena nin kale dalaal ah ayaga dhaxdooda ku jiro asxaab ay ahaayeen oo u tagay markaas wuxuu yiri dadkii saas ay leeyihiin maxaa sameeyaa asigiya u tagay ninkii kale u tagay kuwi dalaalka ah ayada soo dirdirtay wuxuu yiri ani lacagtaas ma haysti ninkaas lacagtaas ma haysto aniga aqaano ninkaas daruuftiisa aniga qof xamaali waa asbdoodkiisa ku xamaasho ninkaas ma haystee balka warama ani tayda xitaa waa ugu tagay adinka tiina hadaa ka tagtiin waxaan ka tagayna malaanay dhaheen hadda arintaas uusan haysan dhulku ka sabraaya ma haystee maxaa sidaas u sameynaysiin maya ninka kamid oo ninka oo waxay dhahday oo saas sameynay hadda isbuuc ka hor u dhintay hadda subxaanallah waa haddadan idin la hadla idin hortaaganahay hal isbuuc ka hor bal fiir adduunkan meesha lagu soo joogo ma ogid maanta bal fiir shalay qofa wax ka soo qaadatay si qof kale u rakaataysid maantana rabbi jalla jalaala wajigiisa hor fadhisa maxaa kula hor fadhida الله أكبر فالمهم نينكي waxay dhahday sidii oo maxay radaasi lacagtii ninkay ku raadiyay dhahday meel walbo galay waa adagtahay dhahday qof xamaali oo maanta meel laga soo biilaynin mise meel oo loogu hagaago oo maanta wax fiican ka soo galayaan la dhahayo lagu ogin in lacag deen la siiyay dhahday aaday u adagtahay ninkayga xaal adagoo maray dhahday in oo $400 uu keeno laana $100 ninkan waa ka sabro dhaani $100 maribi lacagteeda marri waan ka sabray ma fahmaysin sidii lacagta dalaalka dhanna $150 loogu talagalay qofka in wax loogu kala habeeyo lagu kala leexiyo marka Allah musta'an marba qisada ina idinku sii dheereeyo ma fahmaysin marka qayb labaad idin soo gudbina haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo runtii dulmiga hal iska daayo wallahi qisadan ma aqaano argagaxa ku jiro xooga waxa malaysa subhanallah marka Ilaahay khayrkan waafajiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa xaqa ku socda Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo ku soo dhawaada channelkeena subscribe saara asxaabtiin la wadaaga wixii ra'yigiina commentiga noogu reeba like tin dhiirgelino tay like no saara khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajayna insha Allah la socod wanaagsan iyo qaybtii labaad